cabdirasaaq waxaan kugu salaamayaa salaan inta aayadood ee quraanka ah aad baa maasanta sidii maciiday u salaami jirtay dadka weeyaan waxaad joogtaa borame waanigii lahaa af jooga looma adeegay bal horta waxaad ii sheegtay dadka u sheekaysanba mayna haddii kale maxamed aad baad u mahadsantahay reer borame waa salaamayaa waxaan jeclahay marka hore inaan guddigii qabanqaabada ee bandhiga buugaagta borame u mahadceliyo fikirka inaan imaado maxamed iyo sucaad sheekh cabdullaahi cali jawhar baa lahaa aad baan idinkugu mahadcelinayaa book fairkii garow aan joogay deedna waxay yidhaahdeen ilaa waa inaad boramana nala timaadaa 14 saacadood iyo 30 daqiiqo usoo socday markaan isku daray waa 720 kilomitir marka waad garan kartaa niyad wanaagii aan ku imid awalna runtii dhulka Soomaalida borame iguma aysan jirin marka laga soo tago mahadnaqaas guddiga qabanqaabada wax badan baa ii baxay marka panelka markaan soo korayo maxamed wuxuu yiri anaa ku xukumaya wax badan baa dadka wareysatay sida dadka ula hadli lahayd iyo su'aalaha dadka ka iman doona iyo su'aalaha aniga iga iman doona yaa doodanada falanqaynta u noqon doona sal dhaxaad marka maxamed baan u daynayaa wixii su'aalaha waxaan ka jaranayaa taala aan mar hore ku hayay oo ahayd Nairobi aan tagay BBC-da xafiiskaygaan booqday marka Facebook-ga BBC-da ayuu soo fariisiyay kamarad bay ugu qabtay wareysi 2 saacadood oo aan waxba la isku lahayn bi weydiiyay intii baan kaga jaranayaa anoo waliba jooga gurigeygii marka hal isku hiiliyo aniga laftirkeyga waa wax reedila soo ma joogan dilaan aad u jeclaa dilaan hilka sugaya reedila aad u badan baa jooga marka waa idinku isaga la jirtaan hadda laga bilaabo waan kala xoganay cabdirasaaq waxaan jeclahay marka kaftanka laga yimaado inaan ku weydiiyo wariye caana tahay dad badan oo Soomaaliya kugu xidhan BBC-da dhagta Soomaalida weligeed baa ahayd baad muddo soo shaqeynaysay hadda muddo sanad ku dhow ruqsad baad ka qaadatay laakiin waxaad leedahay baro aan isleeyahay malaha wayba ka saameyn badan yihiin BBC-da oo waa meel war iyo wacyi loo doonto waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wariyaal badan baa jira oo Soomaaliya oo la yaqaano hebel iyo hebel la yiraahdo maxaa adigu dadka tirada badan leh milyanka gaadhaya bartaada bulshada maxaad isleedahay way kuugu yimaadeen waxay wariyaasha kale milyan wax saas oo kale u gaadhi waayeen because waxay taasi ka turjumaysaa in qof aad loo mutaabiceeyo lala socdo aad tahay maxaad leedahay waa sababta maxaan rabaa inaan samaano oo iraahdo maxaa keligay loo soo booqdaa halkaan ka yar saxee maanta aniga fatwoonaya aniga waa saxan tahay caaw waad ku wadaysaa may waxaan aniga u oranaynin dad badanna su'aasha way weydiiyeen bogga gabdhiyo wiilal baa gacanta igula haya 917 oo qof baa ku taxan 1,080,000 baa ka dhiman 80 kan inaan saladkan buuxinaan jecelnahay marka mar walba waxaan jecelahay inaan qiro oon sheego bogga inaan gacantayda ku haynin kaliya dad badan oo waxay igula qorna ay jiraan waad qiyaasi kartaa marka 1 milyan oo qof inaad war u sheegto aad rabto maalinkii 30-40 post la gelinayo sawirro leh fiidiyoyo leh warbixino leh marka mar walba waxaan jeclahay inaan iraahdo boggeena waan xasuustaa xaaskayga oon rabo inaan u mahadceliyo markaan bogga abuurayay xidii jirto maxaad halkan ugu mashquushaa maalinaan maanta inaan ku sheegi doonaa waan iri maalinkan 1 milyan ku dhawaada waxaan ku yiri maantaan haynaa boggeeni soo uma jeedid marka way la qirtay boggeeni marka boggeena inaan dhahan jeclahay su'aashaada haddaan u imaado dabcan wariyaal badan oo Facebook-ga ama Twitter-ka ama YouTube-ka ama website-yada wax ku qoraa jira laakiin waxaan is leeyahay waad oga duwan tahay cabdirasaaq ahaan laba shay oon udub dhaxaad oga dhignay boggaas labada shay oo ah mabaadiida warbaahinta ay ku dhaqanto qodobka koowaad oo ah ammaano in nala aaminay inaan nahay dad runta sheega waxa meesha lagu qornaa ay yihiin wax la aamini karo iyo qodobka labaad oo ah wax aqlaaqaysan edeb leh anshax leh oo meeshii de ha iska yacdaan ahayn labada qodob baan isleeyahay at least ugu yaraan alla ilaahay dadka way isugu sheegaan oo waxay yiraahdaan meesha hal aado aad iyo aad baad maadsantahay waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo philosophy baa jira qofba wuxuu ku shaqeeyaa mabda fikriya oo u jihaynaya meeshuu socdo anigii adiguna waa laga yaabaa inaan kala duwanahay sida dadkoo dhan inooga duwan yihiin marka wariyanimada la eego
waryanimadu waa xaqiiqooyin dhacay inaad sida yihiin u gudbiso adoo ka reebaya si aad u aragto xaqiiqada inaad xaqiiqadii siday ahayd un dadkaas soo tusto oo aad ka reebto adigu ra'yiyan si aad u aragto okay marka waa arrin sensitive arrintaas waa yara xasaasi waa xasaasi inaad adigu ka reebto dareenkaaga xaqiiqo dhacdo sida u dhacdo inaad u sheegto principleska ka mid tahay marka waxaan ka rabaa adiga inaan in yaraad aniga iyo dadka noo iftiimiso mabda'iyan xirfadan iyo mihnadan waryanimada marka laga yimaado maxaa kuu dheeroo bulshada Soomaalida ee 1 milyan gaadhaysa u sheegtaa aad baa u mahadsan tahay waxyaabo asaga aan ka bartay baa jira muddadii aan saaxiibada ahayn maxamed waa run saxaafadu waa mihnad laba qaab aad ku soo gali karto inaad cilmi ahaan u barato iyo inaad ficil ahaan u barato ku amal fasho taasaa ka dhigi karta inaad xirfadlan noqoto waana sidaad sheegto mabda ay ka mid tahay inaad tiraahdo waxan baa dhacay magaalada Mandheera waxa laga soo sheegayaa cudurka daacuunka 17 baa isbitaalada la dhigay dhowrna way dhinteen laakiin gadaalka ma raacin karta aniga waxay ila tahay daacuunkaas inuu sabab u ahaa qashinka magaalada lagu tuuray taa dadka dudayni dadka weydiinayso leedahay maxay kula tahay in daacuunka looga hortagi karo marka waa qodob waana ku faraxsanahay in waryanimada laftirkaaga ay wax kaaga baahan tahay laakiin waxyaabaha aan jeclahay oo isleeyahay runtii waad ku dadaashay mar walbana aan jeclahay waa waxyaabaha halkan i keenay anigu de war ma soo doonanin inaan maanta boqolaal dhalinyaro u badan oo reer borame aan hor fadhiisto laftirkeeda waxay tahay dhiirigelin iyo jacayl aan idin qabo marka dhiirigelinta laftirkeeda waa qayb ka mid ah waxyaabaha aragti ahaan aniga mabaadi ahaan aan u taagnahay haddaad xasuusataan bogga war kaliya laguma qoro mararka qaar waa anaga niraahno maanta siyaasadii iyo wararkii noocaas aan ka nasanno kaftan baa lagu tuuraa heesa jaceelaa lagu tuuraa qoraal yaroo gabayaa mar lagu tuuraa farsamooyin iyo tiknikada adduunka lagu tuuraa marka adduunka hadda socda ee modern journalismka la yiraahdana warkii hard newska dadka way ka sababtoo generationka hadda kacay ee digital generationka la yiraahdo imisa qof hadda video duwanaysa intaas sawir qaadanaysa laakiin waxa laga yaabaa intano inaysan ku heshiinin aan radio dhageysano inta magaalada ay tagaan radio Philippines soo gataan batriya la galiyo anteenada loo taago inaysan ku heshiin waan idaacaddan dhageysano laakiin waxay ku heshiis ku yihiin inay sawir qaataan video qaataan Facebook-yadan ay soo dhigaan email la isugu diro WhatsApp kana la isugu diro marka warbaahintana waxay la jaan qaadaa jiilka noocaas ee hadda digital generation-ka la yiraahdo anna digital generation-kaas aan la jaan qaadaayo suuqayga nin oo suuqiisa og baan ahay odayaashii waan la hadlaa 70 jiraal iyo wixii ka weyn ee iyagu rabo qarax dhacay ucid iyo kulmiya is haysta Trump iyo hodana waxay is haysata ilhan hadana waxa kale oo la jaaqaadaya 20 jiraalka dilay iyo borame degan ee raba inay ogaadaan kooxda Manchester yay soo gadatay heesta u dambeysay way waxa jecelahay inaan qaababka wax loo gudbiyo waxa kamid ah marka gaar ahaan dadka la hadlayo in la qofeeyo sheekada waa storify waxaan jeedaa inaad u dhigto waxaad gudbinayso qaab sheeko oo kala ah oo aan waxaan ka hadlayo ku xidho aniga waxaad sidoo ila halmaala su'aal muhiim ah halka ku jirta waxaan ku weydiin rabaa marka aniga shaqadaan qabto ee uu safro ee nolosh aan waxa la igu yaqaano story baa igu qisa jirta kullamaan oo aan leeyahay oo halkan wax ka soo bilaabay iyo waxaan soo arkay yaraanteed waxaas sawaan qofeeya markaan ka hadlayo hadda story baan ka sheekeynay waxaan uga sheekeynay si aan u dareensiyo dadka in waxaan ka shaqeeyaa oo noloshayda xidid dheer ku leeyahay adiga waxaan ka rabaa inaan ku weydiiyo waana su'aal aad u muhiim ah maxaa kugu dhiirigeliyay inaad wariye noqoto qof ahaan sheekaan rabaa what's your story hadda tiraado sheekada waxa salaad subaxan ku gaari karaa mihnada wariyanimada waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka markuu hiwaayad ahaan u fikirayo uu yaraanti bilaabo waxaad arkaysaa cunug primary asagoon dhammaynin dhahaya leelahani waxaan jeclahay inaan qof faleebo ku mudo inuu dhakhtar noqdo u socda ama uu ka bilaabo kalkaaliye laakiin marka hore wuxuu yaqaanaa un faleebadaas gacanta lagu mudo iyo kanin qof la siiyo sharoobo yaro malgacad lagu laakiin marka wuxuu ka bilaabayaa dugsigii hoose dhexe mentalitygiisa iyo maskaxdiisa iyo dhan wuxuu ku jihaynayaa dawo iyo secondary-gu aadi maadooyinka uu dhakhtarnimada ku noqon lahaa buu bilaabi deedna markuu jaamacadda aadana dhakhtarnimadii rasmiga
anigu yaraantaydii baan waxaan la soo kacay ma xasuusto da ahaan laakiin waxaan xasuustaa inaan idaacadaha jeclaa inaan dhegaysto inaan wax qoro inaan codeeyo ardada iskuulka waxaan ku dhashay magaalo Kismaayo la yiraahdo waana la kaxeeyay dugsiga hoose dhexe Dhoobaan aan waxbarashadeedii ugu horeeyay ka bilaabay degmada Afmadow ninkan baa tagay Afmadow ha ninkan baa wali ii soo sawiray waan xasuustaa dukaankii aabahay laba irdoodka ahaa iyo dugsiga Dhoobaan la dhigan jiray anoo caato sarwaal yar oo daba gaab qaba aad baa ugu faraxsanahay markaasaan bilaabay waa macallimiinta iyo ardada iyo waxay dhigi jireen niyo wariyanimadan iyo waxaan waan la barbaaray noloshii nooca ahayd waqti uma helin in waxbarashadeeda Soomaali ku dhameysto wakiil la qaxay Kenya aaday halkii baan ka sii waday inaan joornaaladii akhriyo Kenya markaas way ka hormarsaneed Soomaaliya markuu qaxa dhacay ahayd hiwaayadan jaceelka iyo warka ah waan la soo yaraa waan la barbaaray haday ninkan wuxuu yiri hooyaday waxay igu oran jirtay war baa ku madoobay laakiin hooyaday waxay igu tiri afkaan ku barakeeyay marka barakadii hooyana meesha way ku jirtaa markaan qofeeyo dabcan de hal mar dariishada kama soo gelin oo Cabdirasaaq Catosh 917 kuna ku taxan caan weeyaan ma noqon waxaan u soo koray jaranjar baan u soo koray idaacadii baan ka soo shaqeeyay barnaamij xiriiriyaan noqday barnaamij soo saaraan noqday London baan aaday waan soo tababartay waan soo noqday barihi bulshada soo baxay waxaan ku faraxsanahay waxa dhaqan ii ah inaan abaalka dadkii lahaa u celiyo maalin qofkii wax ii gala tala igu kordhiyo i baraarujiya i dhiirigeliya sida dhiirigeliyaheena uu noo sheego fikirkan ah inaan horta bog furto horta boggeyga Cabdirasaaq Catosh ninkii ugu horeeyay ii furay Cabdifataax Ibrahim Cagayar oo ahaa wariye BBC daas kala shaqeyno aad baan ugu mahadcelinayaa boggi markaan furnay xiisa badan ma siisaynin waadna taqaanaan Facebook oo waa labo profile-kii oo markii ugu horeeyaba at Facebook albaab ahaan uga soo galayso deedna boggi aan furnay Facebook page inaan fahmo horta waqti qaadatay maxaa ugu baahnahay wariye ahay idaacadan ka hadlaa Facebook profile ay furan dadkan kula chat gareeya sawiraan soo dhiga laakiin inaan Facebook page furto maxay tabaahida hay'adan u shaqeeya idaacad gooni ma noqon kartaa taa laftirkeeda inaan fahmaa waqti igu qaadatay adiga waa inkastoonan xoog badan gelinin Cabdiraxmaan Ali Xasan in la yiraahdo saaxiibkay ah ragga page-ka ila kiciyayna ah waan xasuustaa 2015 Febraayo anoo jigjiga jooga yaan telefoonku wada hadalnay wuxuu yiri Facebook suuq buu yeeshay Cabdirasaaq haye baalkii inaan kicinaan rabnaa oo seen ku kicinaa de warar baan maalin walba dhigaynaa haye deedna dad baan nagu soo biiray oo say nagu soo biirayaan way isu sheegayaan aanimadaadina way ku kaalmeynayaan boggi waa kii Cabdirasaaq Catosh ahaa baa la oranayaa kadibna maalintii 5-6 story aan soo dhigaynaa maxay dadka jecelin oo maxaa kamid ah ciyaaraha aan ku bilowno bal waayahay editor buu ka noqday oo page-ka waad aragteen qof baad editor ka dhigi mid kale ka dhigi deedna warar buu soo gelin awood wuxuu u leeyahay inuu page-ka kula maamulo sport buu ku bilaabay ciyaare iyo waxyaabo socod page-ka wuu kabcay 20,000 25 31 markaasaan is ogaaday deedna commenti waad akhrini ila Facebook raadiyo oo kale maan raadiyo inta dimaatad warkii daldasho umbaad galban yaa ku nacay yaa ku jecel maxaa lagu yiri warka ma haysid laakiin kan warka hadda soo dhigtay isla markiiba 300 400 baa commentiyada baan akhrinaa dhiirigelin baan helay marka soco leele okay waxaan marka ku xijin Maxamed shaqo su'aashaada dheereede waxaan ku xijinaa marka inaan markii dambe shaqo ka dhigto wararkii BBC doo kale soo dhigo anigii liiga arko meesha ila marka hore microphone baan ka hadli jiray raadiyaha deedna waan galban jiray in aniga ay dadka i bartaan waa kuma Cabdirasaaq Catosh shaqadan BBC da kasoo marka laga soo tago muxuu yahay waa nin ceenkee ah falgalka noocaas ah ayaa Maxamed horta wuxuu abuuray inaan aniga horta is ogaado inaan saameyn leeyahay inaan dadka wax ka bedeli karo ilaahay wuxuu xukmay waan xasuustaa maalinkii 100,000 uu boggeyga galay yani waxay ahayd noloshayda mid kamid ah buurihii ugu waaweynaa inaan ka talaabay 100,000 oo qof maanta gashay Soomaan ha oh come on so move on ilaahay idinkii bisha September-na 1 milyan yaa u dabaaldegi doonaa aad iyo aad Cabdirasaaq waxaan jeclahay session-keenu aad u yara dheeraaday dad kale oo muhiim oo qiimo leh inay sugayaan inaan laba su'aalood oo degdeg ah wixii ugu darnaayay intaad saxafi ahayd ku soo mara maxaa ugu darnaayay oo ku soo maray oo isleedahay maalintaasaan hirig galay ama maalintaasa lilmayga keentay challenge-kii kuugu weynaa aad aragtay intaad wariyanimada ahayd
hayloobin inay jawaab degdega tahayna wallahi waad maasantahay inta badan waa li weydiiyaa su'aalahaas laakiin waxaa jira wax aad markaad shaqada ku jirto aad ku qasban tahay inaad samayso ilaa waa warkuna de waa war inkastoo de anshixii dhaqankii Soomaalida islaamnimadii aadan ka xadgudbi aadan ku dhaafi karin oo xayndaab mar walba ku reebaya uu yahay laakiin war aadan jeclaysanaynin haddaad akhrisana adoon raali ka ahayn aad akhrinayso ogtahay inuu ku taabanayo waxay ahayd maalinkii Saddam Hussein la daldalayay London baan joogay haddaad xasuusataan Saddam markii lagu xirayay xariga hadal buu yiri af Arbeed buu ku hadlay uu tooxisaday dadna news clip buu ahaa Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad baa warka akhrinayay clipkii baan u tarjumay marka clipka codka ee warka la saaro ciid bay ahayd haddaad xasuusataan ninkii xariga ku xirayay wuxuu ku yiri war soo ma ogid inaan Saddam ahay war soo ma ogid madaxweynihii Ciraaq inaan ahay war soo ma ogid ninkii Ciraaq waxaan ka dhigay inaan ahay erayada noocaas ah iyo tawxiidkii uu ku xijiyay iyo maalin ciid ah runtii aniga Cabdirasaaq ahaan de doorashaan lahayn ma codeeyeen ma sameeyeen waxyaabo runtii aad ii taabtay ahayd arrin kale iyadana aad runtii qalbigayga aad u gubtay oo aan isdhihi karo alla ilaahay haddii aad talabtaada ay tahay waxay ahayd gabadh walaalkeed Liibiya lagu dilay magafa qabtay la garaacay codkii naloo soo duubay isagoo la badbaadiya gabadhii aan waraysanay oo gabadhii ka sheekeynaysa deedna waraysi oo socday ooynaysa markaas anigana la ooyay sababtoo waan dhameystiri kari waayay waraysi waxyaabaha noocaas ah birlabmatid bini'aadana tahay wariyaada tahay waxyaabaha noocaas marka way ku taabanayaan marka labada qodob baan alla ilaahay isleeyahay maxamedow su'aasha ugu dambaysan dadka kaga baxayna waxaan rabaa dhalinyaro ayna aan la joognaa dhammaantood safar u gaaray ku jiraan qof walba wuxuu ku jiraa dagaal aynaan waxba ka ogeyn qof kastoo halkan fadhiya dagaal aynaan waxba ka ogeyn buu ku jiraa wuxuu la tacaalayaa umuuro ilaahiisa iyo isaguna isla garanayaan qaarkood waxa laga yaabaa in waalidaan uu joogin qaarkood in waalidkii ka xanuunsanayo qaarkood in dhaqaale darro jirto I know anigaa soo maray adiguna waa soo martay waanan mari doonaa qof walba halkaa fadhiya wuxuu la fadhiyaa rajo ah inuu nolosha ka adkaado oo uu mar uun libin gaadho oo qof wax qabsaday wax istaray wax noqday dadkiisana wax taray noqdo marka halkaa ay marayso adiguna aad tahay qof wariye oo meel fiican joogo oo dadka Soomaalida wariyaasha ugu caansan ka mid ah laba shay oo tala u noqon karo qof dhalinyaro ama qof weyn ama qof caadi ah oo dariiqa u bidhaamin kara dhakasi waa maasantahay waa su'aal isaga in la weydiiyay ay ahayd buu aniga iiso laakiin tusaale yar baan macnaa intaan jawaabta bixin tusaale waanigii sheegay meesha hadda aan joogo de kuma iman dirishad ka soo gal deedna hal mar un hal yiraahdo waa Cabdirasaaq catosh waxbaan soo maray jiraan jirooyin caqabadaan soo maray waan xasuustaa maalinkii ugu horeysay ee BBC-da ku soo biiray 92 gabdhana meesha way fadhiyaan hadda waqtiga sheegto da'da soo bixi way iska caday inaad oday tahay 99 bay ahayd dabcan hay'ad weyn markaad ku soo biirto dad baa ku jeclaysan kuwa ku nacaya kuwaan rabin baalkii caqabadaha noocaas ah iyo dhalinyaranimadii adigoo nin da'yar oo waxyaabo fara badan ama fudeedkii dhalinyaranimada ay ku qaadayso ama tala xumo caqabadaha noocaas ah haddii aad ogtahay sababtoo aniga markaa waxa igu jirtay allaylehe 2019 July 25keeda maashina joogaysa meel baan ku socday 10 sano ha igu qaadato 5 sano ha igu qaadato hiwaayadan aan isleeyahay Cabdirasaaq waad ku fiican tahay inaan meel ka gaaro waa aaminaad maxamed horta inta la ogaado waxa weeyaan aaminaad waa ku inaad waxaan aaminto maanta haddaad wiilashan kaamarooyinka iyo sawirada qaadaya ay aaminaan kaamaradan yarta ah Canonka 101ka alla ilaahay waad ka shaqaysiin kartaa sawir quruxsan baad qaadi kartaa waa aaminaad waxaan inaad itiqaado inaad adiga leedahay arrinta kale aan aniga aaminsanahay inaan ku guuleystay aanan jeclahay in dhalinyarada aan ku baraarujiyay waa dad la dhaqanka nolosha waxyaabaha salka waa weeyaan especially marka mihnada warbaahinta laga hadlayo waa in dad la dhaqan leedahay furfuran tahay nin bulshaawi ah tahay labada shay qofka hadduu qalbiga gashado waxa ku taagan inuu gaarayo yana aaminsanahay aad baad u mahadsan tahay su'aashaadaas dariiqan ku banaysanay waxaan jeclaa labadaada iyo laba aan ku daray inaan kaga tagno labadaan ku daraya wax weeyaan ta koobaad oo ta ugu muhiimsana
qofku wuxuu ka dhaqaaqaa ama ka dhaqaaq waayaa waa siduu wax u arko perceptions adduunka saa u arkaysa adduun aragga maanhaga madaxa yaree nagu rakiban baa inahaga kaasaa waxyaabo badan suuro geliya ama caqabad inagu noqda ama fursad inoo fura in dadkaad raacdo waxaad ka sheekayso waxaad maqasho iyo waxaad aragto aad uga fiirsato oo waxa madaxaaga galaya uu noqdo waxaad hubto inuu kuu dhaweynayo halkaad u socoto kow talabaadoo ta ugu muhiimsaneen isleeyahay waxbay qaban kartaana dadku halkay 100 ka raadinayaan adigu yara fidso 150 ka dhigo ama 200 ka dhigo extra mile hal talaabo ku sii dareentay dadku shaqaynayaan laba nin baa farta yidhi keenay adkaysi badanoo wuxuu yidhi labadiina farood keliya lido gooska dambu midka kala fariisa galiyay waa la isqaniinay waa la isku hayay adkaysigii waa la tijaabinay moogta waa la isku hayay labadii nin si farihi isku hayeen qaniyadii ay labada dhiig ka soo yaacay labadiiba halkaas uu dhiigii farta ka soo yaacay cararaya way isku adkeeyeen markay adkeeyeen ayaa waxa dhacay mid kamid ah ooyo yidhi walaalkayga qaad wayga tahay kii kale wuxuu ugu jawaabay one more second haddii hal unaad sii hayn lahayd anigaa ku odhan lahaa walaal iga qaad so wax badan oo aad u malaynaysa inaanu shaqaynayn ood ku daalayso cid badan oo kaa niyad jabinaysa aad maqasho oo duruufo kuu diidan oo dhaqaaliyo wax kala alaad jira wax badan oo tashwiish kugu furayaa jira brother sister one more minute hal minute sii yara joog meesha hal sano sii yara joog hal week hal maalin sii joog dadkoo dhan oo rajo la'aan arkaya sii yara joog 1 minute you're going to wait aad iyo aad baa u mahadsantihiin